الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في النمو عن وناسن داوديال إذا أنت مقصود هذا الصومالي تي في مقالة بوصاصو داوديال وفي نمو السبتية تعرض أن يكون بيجان تاي صدح يتوان خبيش صدحار لبدا كل لباتني كودا داوديال وحاورك في نمو الناس حسين دوناني محمد عبد العزيز سعيد محمد خان قضبضا أتكم وردو تنوركنا في نمو حاكم ذا مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجو وكلهم تعسير لقاتي لذا يؤبتك وللي مدحوينيه وراء الله نحرسته مرحوم علي مهدي محمد والشلي أصلا لوسمي مقالة اسمه الشو لا أولا تدرك فلسطينسك وعب الشاي قبتي كسو بنكتي إنه يسكب حسادرك ويسقاوي سوحلي لوجود جري حفلة دعوة المرينتا في المانتا فلسطينسك مسؤولين تم مقالة مينيابوليس أيها تضوي لا 10 مليون أو مقدوة وانسي قويسكا جورج فلوت أو هاني المدو مريكنا هاتنا سويسرلاند وحمرك وول سلو دورتويل سوماليا إنه حبين كان نقضو دولة هوسي مقالة سي لوزانا حالة دالكا سميان مار أو فراها كسي بحيسا داوة ديالو حين تاسنوغي قضبادة نفيدنمو هاتنا كسو دوادا يوغو فافاسا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa kulan tacsiya la qaatay ubadka qoyska iyo qaraabada madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo shalay aas qaran loogu sameeyay magaaladaasi muqdisho madaxweynaha ayaa la wadaagay ubadka qoyska iyo qaraabada madaxweynaha in maamuuska qaran ee dowladda Soomaaliya ay u sameysay madaxweynaha cali mahdi maxamed ay ka tarjumayso sida shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay u xasuusan yihiin doorkii uu ku lahaa dowladnimada iyo hogaaminta dalka geerida Allah naxariistay madaxweyne cali mahdi maxamed ma ahan mid kaligiin gaar idin taabanaysa ee waxa ay ahayd mid si murugo leh ay wada dareemayaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed marxuumku waxa uu door weyn ka qaatay dowladnimadeena waxa aynu waligeen ku xasuusan doonaa sida ay uga go'oneyd in dib loo soo celiyo dowladnimadii Soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ka bixiyay ugaas maxamuud cali ugaas iyo wiilasha marxuumka liibaan cali mahdi iyo mahdi cali mahdi ayaa uga mahadceliyay madaxda iyo hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliyeed sida maqaamka sareeye ee loogu soo dhaweeyay iyo aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed jalaaw dhalatay dalka Faransiiska ayaa cabashay qabtay ku muujinaysay inay dharka isaga dhigto oo ay isqaawayso xilli lagu guda jiray xafladda abaalmarinta filmaanta Faransiiska Corina Masiro oo 57 sano jir ah ayaa ka dalbanaysay dowladda Faransiiska inay taageerto dhaqanka xilligan lagu guda jiro fayraska corona ee safmarka Mrs. Masiro ayaa markii goobtii ay xafladdu ka socotay looga yeeray waxa ay soo gashay iyada oo xiran go dhiig leh oo loo akiisiyay dameer ka hor inta aysan maryaha iska dhigin masraxa goobaha shineemooyinka dalkaasi Faransiiska ayaa xiran in ka badan muddo 3 bilood ah taasi oo qayb ka noqonaysa xakameynta fayraska coronavirus goobaha shineemooyinka dalkaasi Faransiiska ayaa xiran in ka badan muddo 3 bilood ah taasi oo qayb ka ah xakameynta fayraska corona balse waxay ka nixisay dadkii xafladda ku sugnaa kadib markii ay dharkii isaga bixisay masraxa isla markaana jirkeeda ay ku qortay erayo ay kamid ahaayeen dhaqan ma jiro waxay si toos ah codsi ugu jeedisay ra'iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex Masiro waxaana dhabarka uga qorneed fariin ay ahayd dib noogu soo celi dhaqankeena Mrs. Jean jaliyaasha iyo agaasimayaasha filimada ayaa markii ay xafladdu khudbadda ka jeedinayeen dhankooda codsi kaas la mid ah jeediyay bishii December boqolaal isugu jira jalayaal iyo fanaaniin ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Paris iyagoo ka cabanaya go'aanka ay dowladdu ku xirtay goobaha lagu soo bandhigo dhaqanka haatana Minneapolis mas'uuliyiinta magaalada Minneapolis ayaa 27 milyan oo magdhow ah u ansixiyay George Floyd oo ahaa nin madow Mareykan ah dilkii uu askariga boolis cadaan ah u geystay wuxuu sababay in gobolada Mareykanka oo dhan ay ruuxaan mudaharaadyo rabshado wata iyo dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo kamid ah caalamka muuqaalka aadka looga argagaxay ee laga duubay ninka 46 sano jirka ahaa ayaa muujinayay wixii dhexmaray booliska Minneapolis iyo George Floyd qabashadiisii ilaa iyo geeridiisii dhanka kale qareemada qoyskiisa ayaa sheegay in muuqaalku uu fududeeyay cadaaladda aan la dafiri karin iyo isbedelka xulista xeerbeegtida ee dilka George Floyd ayaa hadda socota waxaana ilaa iyo haatan la xulay 6 kamid ah 12 garsooriyaal oo ka howlgali doona dhageysiga bilaabanaya 29 Maars haatana dalkaasi Switzerland waxaa markii ugu horeysay qof Soomaali ah loo doortay inuu xubin ka noqdo dowladda
hoose ee magaalada Lausanne kaasi oo lagu magacaabo Yuusuf Kulmiye. Lausanne ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi Switzerland. Warbixin arrintan ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay Xuseen Barre. Yuusuf Kulmiye oo ah siyaasi dhalinyaro ah kana tirsan xisbiga Socialist-ka ayaa dhawaan ku guuleystay xubinnimada golaha deegaanka ee magaalada Lausanne oo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Switzerland. waa markii ugu horeysay ee uu qof Soomaali ah ku guuleysto xilkaasi. Yuusuf ayaa ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhalatay kuna barbaartay dalkaasi Switzerland. waxaana uu VOA-da u sheegay in ujeedada uu ugu biiray siyaasadda dalkaasi ay tahay si uu u matalo danaha Soomaalida iyo muslimiinta ku nool dalkaasi Switzerland. xilkan inaan u tartamo waxay igu dhalatay muddo hadaba waqti dheer 5 sano la soo dhaafayay waxaan ku jiray siyaasadda waqtigan hadda munaasib ay noqotay inaan u tartamo kursigan magaaladan waa magaalada afraad Switzerland. kaasi waxa uu Yuusuf Kulmiye oo ka mid noqday xubnaha dawladda hoose ee magaaladaasi Lausanne. haatan xaaladda dalka Myanmar oo faraha ka sii baxaysa. ugu yaraan 3 qof ayaa ciidamada ammaanka ee Myanmar toogteen xilli dibadbaxyo looga soo horjeedo militariga ee dalkaasi ka socdaan. 2 wiil oo dhalinyaro ah ayaa waxaa lagu hortoogtay afaafka hore ee saldhigga booliska magaalada Tikata ee deegaanka Yongyon. dhalinyarada ayaa ku baaqayay in xabsiga laga sii daayo dibadbaxyaal kale oo halkaasi lagu xiray. sidoo kale haweeney ayaa lagu toogtay goobta lagu magacaabo Mandalay halkaas oo wararka lagu baahinayo baraha bulshada ay sheegayaan in ciidamadu ay rasaas u isticmaaleen dibadbaxyaal si nabad leh u banaanbaxay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in militariga dalkaasi la wareegay ay dileen 70 qof tan iyo intii ay dibadbaxayaashu socdeen. daawadayaal waxaan intaas noo eeg warkeena fiidnimo ee aad ka daawanayseen Somali TV. daawadayaal waxa warkeeda la socodsiinay anigu ah Maxamed Abdulcasiis Saciid Maxamed Khan. intaan ku kulmi doono warkan war lamid ah waxaan idinkaga teginaa sidaas.